إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأنكسو جنة تفسير كي قرآن كريم كاها ودرسيني بغال فرطن يتضب ونوغا باللابان يا آيات اللحدانات من سورة الفرقان انت ننسجلين درسيغاس وحن وحي الرأسين إنا درسيني حالي آيات يقدم بيدي الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وحن رأسينينا شبهة جوابكيد شبهة لسوء أروريي وقال وحيرادا استوى معنيه ذو وحويان استولى ووحلو لك إذا هيرادا علو قهر وغلبة نعم استوى على العرش وصح هيرادا الله عرشك واكو استوودي لكن معنى الاستواء علو قهر والغلبة إلهي عرشك سوا كسرية لكن سرينت معنيه وعلو قهر والغلبة سقع قصبي وكقارب مغضي سلاسي مفسرين وحانا نوجد دليل هيرهدين بيتك وحويا أخضل ويري قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي قد استوى بشر كلابيه جري وكغالب نقضي على العراق عراق من غير سيف أصغن هبقاضا ولا دم مهراق بيقنا عن ضاد مركا waxay raadeen istawa bishr marka la raad bishir ayaa ku istiwooday ala al-iraq waxa loo ogsoon yahay inta bishir duula inuu san kor istaagin iraq macnaheedu waxa weyn waa ka qaarib noqday oo waxa weyn awoodii iraq u qabsaday idan waxay raadeen istawa ala al-arsh allah marka la leeyahayna sidaas oo kale waxaan leenahay uluu qahrin wal ghalaba ilaahay ba qasbay oo ka qaarib noqday saasan u fasirayna hayraadeen الجواب لح وجه اللوغة جوابا وجه الغورة وحا اللوغة جوابا معناه استوى إن لغو فصير استولى التفسير كاسو ليس معروفا عند العرب ولا عند أئمة اللغة المتقدمين وحوى معناه استوى إن لغو فصير استولى ماها معنى اللي يقان عند العرب oo carabti fusaxada ahayd macna ay tiqiin maahan a'immadii luqada ee luqawiyiinta ahaayee mutaqaddimiinta ahaayee horena nin ka mid uma sheegin marka tan ugu horreeyay looga fasirin oo waxa weeyaan tafsiirkaas looga jawaabaya waa midaas tan labaad waxa qowlkan loo nisbeeyay akhdal wa huwa rajulun nasraniyun la yuhtaju bi kalami wa nin kirishtan hadalkiisa lama xujaysan karo tan labaadna waa midaas waxa weeyaan kalaamkan waxa loo nisbeeyay ninka la yiraahdo akhdalna waa nin kirishtan kalaamkiisuna xujo ma aha tan labaad lagu jawaabin midaas tan saddexaad lagu jawaaba waxay tahay tafsiirkaas wuxuu khilaafsan yahay tafsiirkii salaf saalih oo aan ka soo naqlinay a'immatul huda tabi'iyalki ardadii saxaabada mujaahid oo yiri ala iyo Abu al-Ali oo yiri irtafa'a ibn Jarir al-Tabari macnaha yiri wa awla al-maani waxa weeyaan macnaha ugu xaqnimo badan qowluhu ta'ala thumma istawa ila samaa'i suratu al-baqara wa sawfa fasira magaad macnaha ugu xaqnimo badan ala wartafa'a way marka macnihi a'immatul huda laga soo naqliyay iyo ardadii saxaabadan waa khilaafsan iyo wajka saddexaad looga jawaabana midaas wajka afraad looga jawaaba waxay tahay أخضل كاللون نسبي بيت كان أخضل اللون نسبي أخضل إسكالها لي أنا لو كسوية ننكست أو قبيع عربتا أو قبيلة قبيل يسيط ديوان اللون سمي وقرين ديوان كأخضل كمتشرو وبيت مصنوع الله إسكاسا ما يستبيت كان حتى أولا كريشتن كا قبيل يسي والله ديوان كيس بيت كانوا كمتشرو إذن وبيت مصنوع أهل البدع الدكسدين سيئي علوي وقلت دقالما تاسنا وجوابتا وامحي أفراد
jawaabta shanaad oo lagu jawaabaa waxay tahay macnahaas oo ah istawa oo lagu fasiro istawla waxay manaasib noqon kartaa markii hore inuu alle did lahaa cid ku haysata carshiga oo ay inta isku qabsadeen uu ka qaalib noqdo waana siday a'immatul luqa ay u fahmeen kitaabka saxiix al-bukhari ga sharxiisa fathul bariga kitaabka kitaab tawxiid baabka wa kana arshu ala al-maa baabkaas fathul bariga wuxuu yiri daawud ibn ali ibn khalaf kunna inda abi abdullah ibn al-a'rabi al-imam al-lughawi muhammad ibn ziyad al-lughawi ibn al-a'rabi imamki waxa weyn luqawiga ibn al-a'rabi muhammad ibn ziyad aan la joognay nina u yimid markaasuu yiri ar-rahmanu ala al-arshi istawa macnaheedu waa maxay uu weydiina markaasuu huwa ala al-arshi kama akhbara saas ugu jawaab ilaahi arshigu ka sareeya sidaas uu noo sheegay markuu intaas yiri ibn al-a'rabi ayaa ninkii wuxuu yiri ya aba abdullah inma ma'nahu istawla macnaheedu waxa weyn allah ka qaalib noqday markaasuu yiri uskut la yuqalu istawla illa an yakuna lahu mudad amsu luqa wax kama taqaanide istawla lama yiraahdo yiri illa markuu ahad ku lid leeyahay maahan markuu did leeyahay oo didkaas yaa saw isqabsadaan asagu adkaado alla yiraahdo istawla ilaahi yaa ku haysatay jawaabta lixaad ugu dambayda lagu jawaaba waxay tahay hadii istawa macnaheeda lagu fasiro istawla arshiga iyo makhluuqaadka kale wax macnaha uma dhaxay arshigu ka qaalib noqdo meel makhluuqa kamid uu alla ka qaalib yahay jirto maxaa arshiga loo khasiisa toddoba goor lagu soo celina haday tahay istawla macnaheedu istawa macnaheedu haduu yahay istawla maxaa loogu khasiisayaa arshiga ilaa makhluuqo dhan ilaahi meeluusan ka qaalib yahay jirto oo laga haysto meel koox falaaw ka haysato ma jirto maya hadaba wax loo khasiiso arshiga lama fahmi karo lixdaas jawaabood ay ahlu sunna uga jawaab lixdaas jawaabood ay ahlu sunna uga jawaab marka waa hadal waxa weeyaan qof kasta marka intaas jawaab uu dareemo kadib uu ogaanayo inuu faasid yahay saliyaraadna uusan lahayn xub caarana uu ka jilicsan yahay marka qala ta'ala wa idha qila lahum mushrikiin tamarki la yiraahdo usjudu usjuda lirrahmani allaha naxariista ballaaran usjuda markii la yiraahdo qaalu mushrikiintu waxay yiraahdaan wama arrahmanu rahmaanna muxuu yahay an nasjudu ma usjudayna lima ki ta'muruna adna amrayso wazaada qowlkaas wuxuu siyaadiyaa mu'miniintu ku yiraahdeen ama rasuulku ku yiri hum mushrikiinta wuxuu siyaadiyaa nufuran araritan ayadan allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noogu sheegayaa marka mushrikiinta la yiraahdo war allah rahmaanka usjuuda inay diidaan oo ay inkiraan magacaas allah oo ah rahmaan magacaas alle oo rahmaan ah inay diidaan ila wuxuu wayda qiila marka la yiraahdo allahum mushrikiinta waxa ku dhahaya waa ama rasuulka ama waa mu'miniinta kale ayaa kule marka la yiraahdo usjudu sujuuda lirrahmani allah rahmaanka usjuuda naxariista ballaaran qaalu mushrikiintu waxay yiraahdaan wama arrahmanu rahman muxuu macnaha waa inkiraan magacaas alle in allah rahmaan lagu magacaabo mushrikiintu waa inkiri jireen sida ay u inkireen يوم الحديبية صلح الحديبية مالكيدي نبي صلى الله عليه وسلم ننكي هشيسك قريي ووحو كويري اكتب بسم الله الرحمن الرحيم كو قر هشيسك ورقد أول كده بسم الله الرحمن الرحيم مركز أي إنكرين ويرادين لا نعرف الرحمن ولا الرحيم أنه الرحمن نقرن ما إنه رحيم نقرن ما إنه ولكن اكتب كما كنت تكتب وحادو قرطا سيدي ادو قري جرتي بسمك اللهم مغعاغان كبلابنا اساس كو انغ الله نقانا مغعاسن نقان لكن رحمن يا رحيم لوداس مايا تاس marka waxay ku tusaydaa inkirid la inkiro magacyada ilaahay magac kamid ah inuu kufri yahay
min sifaati alkufaarna uu ka mid yahay gaalada inkiri jirta waajib waxaa qofka muuminka ku ah magac kastoo magacyaalka ilaahay ka mid ah kitaabka alle ku sugan ama sunnada nabiga ku sugan sida uu u sugnaaday inuu u rumeeyo saasaa waajib ku ah marka aayada qur-aana ilaahay weynaa soo dejiyey oo ilaahu leeyahay qul idcu llaaha aw idcu raxmaana ayamaa tadcuu falahu lasmaa lxusnaa waxaad ku tuugtaan ama ku magacawdaan idcu llaaha allaah ku magacaaba ama ku tuuga aw idcu raxmaana ama raxmaan ku magacaaboo ku tuuga ayamaa tadcuu falahu lasmaa lxusnaa mid kastood ku baridaanba ilaahay magacyaal wanaag badan uu leeyahy magacyaal wanaag badan uu allaah leeyahy marka mushrikiintaa diidi jireen sifa ilaahay ama magac ilaahay oo la diidaa waa sifa min sifaati alkufaar waana kufri qaaluu waxay idhahdaan wama raxmaanu raxmaan muxuu yahay annasjudu ma sujuudaynaa limaa maada waxaa ku bannaan in mawsuulo laga dhigo limaa kii miyaan u sujuudaynaa ta'muruna adna amraydo macnaha waxay leeyihiin annaga garan mayno kuma qanacsanin raxmaan adiga inaadna amartay oo kaliya mujarada annagoon garayn macnihii miyaan iskaga sujuudaynaa limujaradi an ta'murana inaadna amartay oo kaliya annagoon macnihii fahmin miyaan iskaga sujuudnaa saasay leeyihin garan mayne waxaa kaloo ku bannaan maada masderi in laga dhigo annasjudu ma sujuudaynaa limaa ta'murunaa liamrika iyaana amridda aadna amraydo adiga keliya miyaan iskaga sujuudaynaa ilaah wuxuu yidhi subxaana wazaada faacilkeeda waxaa loo celinaa qiilada masderkeeda qowlka laga fahmaayo wazaada wuxuu u siyaadiyaa qowlkaas oo nabigu ku yidhi usjuduu liraxmaan ama mu'miniintu ku yidhaahdeen wazaada qowlkaas wuxuu u siyaadiyaa hum mushrikiinta nufuuran cararid ay xaqa ilaahay ka cararayaan xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi culimmada muslimiintu waxay isku waafaqsan yihiin aayaddan qofkii akriya ama qofkii dhegaysta inuu sujuudo inay sharci tahay suuratulfurqaan waxay ka mid tahay aayaddaanu mawaadiicda ama meelaha qur-aanka la sujuudo markii qofku akrinaa ama salaad ha ku jiro ama caadisiisa kale ha u akrinaayo marka qofka akrinayaa soo gaaro inuu sujuudo wey waana sunno inuu sujuudaa ee waajib ma aha oo nabiga sallallahu alayhi wasallam inta lagu dul aqriyay uusan sujuudin marna waa sujuuday nabigu sallallahu alayhi wasallam idan marka waa sunno qof laba qof ayna sunno u tahay qofkii aqrinayay iyo qofkii dhageysanayay oo u qastay inuu dhageysto ama salaad ha lagu jiro ama yaan lagu jiro marka meelaha ay ittifaaqato culumadu isku waafaqsan yihiin tan ka mid qaala allahu tabaaraka wa tacaala tabaaraka waxa qayrkiisu batay alladii allihi jacala yeelay fi samaa'i cirka buruujan guryo waaweyn oo wajacala yeelay fiihaa samada dhexdeeda siraajan faynuus iyo waqamaran dayaxaasoo muniiran wax iftiimiya wa huwa allah alladii waa midka jacala yeelay alleyla habeenka iyo wanahaara maalinka khilfatan dawii khilfatin kuwa isbeddel u saaxiib ah liman qofna ay isku beddelaan araada doonay an yadakara inuu waansamo ow araada ama doonay shukuuran shukrin tabaaraka waxaa qayrkiisu batay zaada khayruhu wa kahura macnahaasa ugu raajaxsan sidaan suuradda bilowgeedii kusoo faahfaahinay tabaaraka waxaa qayrkiisu batay alladii allihii jacala yeelay fi samaa'i cirka buruujan guryo waaweyn buruuj waa jamcu burjin burjiga waxaa la yidhaha guriga weyn aa la yidhahdaa maxaa loola jeedaa aayaddan marka la joogo maxaa loola jeedaa xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi buruujta wahiya alkawaakib alcidaam waa xidigaha waaweynoo sida guryahoo kalea kuwaas wey yidhi aayaddan sidaas waxaa ku tegay mujaahid oo taabici ah saciid ibnu jubayr waa taabici waxa weeye labaduba ardadii cabdullahi ibni cabbaas abi saalix xasanubasri qataada taabiciyaalkaasa ku tageen in loola jeedo buruuj aayaddan xidigaha waaweynee samada ku yaalla wa qiila hiya qusuurun fi samaa lilxarasa maya waxaa la yidhi buruujka waa saro waaweyn oo samada ku yaalla oo samada laga waardiyeeyo shayaadiinta marka laga ilaalinaa meesha laga waardiyeeyo weeye waa guryo waaweyn oo samada ku yaalla
قول كاسنا وحا لغا وريي علي بن ابي طالب عبد الله بن عباس محمد بن كعب ابراهيم النخعي والتابعي سليمان بن مهران واعمش iyo abi salih riwaayad uu leeyahay intaas waa laga wari xaafid ibn kathir asagu wuxuu rajaxay qowlka hore wuxuu wal qawl al awwal adhar qowlka hore oo in buruuj loola jeedo xidigaha waa weyn kaas xoog badan halkaas marsiin laakiin wuxuu ku taray wuxuu allahumma illa an yakuna al kawakib al idam hiya qusur lil haras laakiin waxa dhici karta in xidigaha waa weyn ee sanada ku yaala ay yihiin sarahaasna laga waardiyeeyo sanada marka saas la yiraahdana fayajtami'u alqawlan labada qowl waa iswaafaqayaan oo hadaa tira waa sara waaweyn waa sax waa sara waaweyn hadaa tiri wax diga waaweyn waa sax ila xidiga laftigooda saraha labada qowl markaas waa iswaafaqayaan ibn jarir at-tabari asagu wuxuu maray inuu sawaab yeelo inay yihiin guriyo waaweyn oo samada ku yaala oo wuxuu yiri wa awla alqawlayn fi dhalika bisawab labada qowl ka saxni ku xaqnimada badan saxnimada قول من قال هي قصور في السماء وعلماء تري قول كودا بروج waxa loola jeedaa guriyo waaweyn oo samada ku yaala muxuu yeelay wuxuu leeyahay an dalika fi kalam al-arab maxaa yeelay in buruj jamcu burjin ay to guriyo waaweyn ay tahay waa sida luqada carabta ku sugan ilaahna uu yiri walaw kuntum fi burujin mushayyada hadaad ku sugnaataan xataa guriyo waaweyn oo la adkeeyay mawdku waa in ku imaana marka buruujta taasu rajaxay labadaas qowl ayaa jira labadaas qowl marka inay iswaafaqsan sida xaafidku yirina mumkin ayaguna la wuxuu subhana tabaaraka wa qayrkiisu batay alladhi allihi ja'ala yelay fi samaa'i samada dhexdeeda buruujan guriyo waaweyn yeelay oo waja'ala yelay fiiha samada dhexdeeda siraajan faynus waxa weeyaan siraajanta waxa loola jeedaa waa qorraxda weey faynus wala weey فينوس ولا الله إلهي كدغا وجعلناه سراجا وهاجا سيدو الله يري فينوس او ولا لين بدن ايان كيلنا وجعل الله يا قيركي سبطي فيها سماده دحديده سراجا فينوس iyo waqamaran dayaxaas munira wax iftiimiya marka dayaxu samadu ku sugay dayaxu samadu ku jira samana maxaa la yiraahdaa sama laba macna la yiraahdaa sama waxa lagu magacaabaa samada mahfuudada ah mabniyada midda dhisan oo sanqaafkan dhulka ka koreeya samaa la yiraahdaa wa samaa banaynaha bi aydin samada anaga dhisnay xoogan ku dhisno ilaahay marka samada midda mahfuudada mabniyada ah ee dhisan samaa waa la yiraahdaa kullu ma alaka wixii ka koreeyana samaa la yiraahdaa guriga xataa sanqaafkan waa la yiraahdaa samaa falyamdud bisababin إلى السماء وسنقاف كان سماء مركز وأنزلنا من السماء ماء سماء ضرورة اللي جدا مركز وحكستو كاكرية السماء والدا مدة السن هذا قولك كاكرية دانا سماء اللي هذا لما ضوء السماء اللي هذا سماء هل كان تيلو لجدا إلا تيلو لجدا حقوق اسبدله حقوق وين اسبدله هذه اللي لجدا وحي كاكرية هذا كفارتو يراهدان dayaxa korkiisaan tagnay oo laba habeen ku soo hoyeen kuna waa noqon karta been waa noqon karta hadii la yiraahdo samadu waa kullu ma alak oo samadan hadda dayaxu meeshu ku yaala waa cirka waa ka sokeeya hadii laakiin la yiraahdo dayaxu samada mahfuudada ku yaala hadday yiraahdaan dayaxan tagnay kadaabiinatina lali xal ma tagi karaan wajacna samaa saqfan mahfuudan wala wadiya agaha ma dhigi karaan shayaadiintu kufaartuna shayaadiin wey agaha ma dhigi karaan kuwii jinkiyaaba waxa weeye saarata loo halaaga markay agta dhig maagaan ee waxa weyn xalan ka soo cashay waa kid iyo halkaasan tag waa been marka labadaan si loo kala saaro bayhi ma wuxuu ku yaalaa meelahan sako hawada ku jira ma se samada mahfuudada ku jira illa hadii uu noqdo samada mahfuudada inuu ka sokeeyo hadalkoodu yaxtamilu sidqa wal kadib waa kufaar marka inay tageena waa dhici karta inaysan tagin waa dhici karta dil waxiiyo marka waa in la kala xaqiijiyo inay runta in been laakiin haday samada mahfuudada noqoto mid uu ku jira dayaxo ma la rumay karo محمد الأمين الشنقيطي ayaa u banbaxay masaladaas aad ugu banbaxay laba meelooduna uga hadlaa suuratul hijr sifa faasan uga hadlaa suuratul furqaan halkan markuu marayana waa uga hadlaa
وهذا لكن تاسو فاهي وحنا يري محمد الامين الشنقيطي اضواء البيان كا وحيري القرآن كظاهر كسوح يهي إن ضيح كسوغن يهي في السماء المبنية سماء قصان لا السماء التي هي مطلق معلك ما يا سماء أولولة جدا وحي كاسر رياضا تاس كل جدا ضيح وكسر رياضا مدى قصان كجرا إلهي بانا كعدي سورة الحجر سورة الحجر ألا كعدي ضيح إنه كجرا سماء محفوظة تاس ألا كعدي الله سبحانه وتعالى وحيري ولقد جعلنا في السماء بروجا سماء دحديدان يلني waxa weeyaan guriyaha waaweyn ama xidigaha waaweyn dayf kamid yahay xidigaha waaweyn waxaan yeelnay samada dhexdeeda wazayyannaha lin-naadhirin samada waxaan u qurxinay dadka fiiriya maxaa ka dambeeya وحفظناها من كل شيطان رجيم samadaas waana ka ilaalina shaytaan kasto la dheeriyay idan marka dayixu samada uu ku yaalo ama buruujtu xidigaha waaweyn samada ay ku yaalaan waa samadee waa midda mabniyada mahfuudada oo la ilaaliyo samada waxa weeyaan mabniyada mahfuudada weeye oo shaytaan kasto rajiima laga dheereeyo ayay buruujtu ku taala halkaas ay ku taala aayada saas cadeeyay walaqad ja'alna fi samaa'i burujan وزيناها للناظرين بروج سمراس كتالا ايضا سوره الفرقان وحي عديدي ضيح وحو كيالا سمرا بروج كتالا وفير محو الله يري تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها الكلمه علينا فيها في السماء سمراس بروج كتالا بخديدان waxan yeelay siraajan iyo qamaran munira idan marka dayx wuxuu ku yaala samada buruujtu ku taalo samada buruujtu ku taalana waa mid mahfuudada halkaas waxa marka soo baxay dayx wuxuu ku yaala samada mabniyada ah mahfuudada ee sare taasu ku yaala taasna shayaadiin ma tagi karaan gaaladuna waa shayaadiinul insi idan waa kidbi iyo faajirnimo aan sal iyo raad lahayn adna shaki waa inuusan ka gelin caawa kadib hana ku sheegay maxamed al-amiin shanqiidina ka raaji ka soo akhri markaasuu hadal wuxuu ku soo qatimay wuxuu yiri wahada dhaahir macnaha dhaahirka ee quraanka la yanbaqi lil muslim qof muslima uma habboona al-udul anu inuu ka leexdo uma habboona illa lidaliil yajib ar-ruju' ilayhi in daliil ay waajib tahay in la raaco la helo maahane oo mimma jaa bi muhammad nabi muhammad leeyid kamid sallallahu alayhi wasallam marka idan waxa laga rabaa qof kale gaala run sheegto dayaxay tageen ugu horeyn daliil oo waajib ay tahay in la raaco min kitaabin aw sunnatin inuu keeno oo tusa inaysan ku oolin dayxu samada mahfuudada oo ka sokeeyo haduusan keenin waajib weeye in la raaco daahirka quraanka mana banaana daahirka quraanka in la awiro oo laga leexiyo daahirka bi ijmaa'il ulama illa lidaliil yajibu rujuuc ilayh illa hal daliil ay waajibta in la samaano ma banaana daahirkaas laga leexdo ijmaaceedina horaan soo maran marka dayaxa gaaladu tagtay waa kidbi marka aad u akhri adwaal bayaanka cudurkaas waad ka bogsoonayda insha Allah وهو الله الذي وامدك جعل يلي الليل هبينك إيا والنهار مالك خلفة ذوي خلفة اسبدلك وصاحبك هو اسبدله محل لك هذا خلفة وحلو لك هذا يخلف كل واحد منهما الآخر مدبن تكلو كبدل نقضاء كنا تغا كنا إيمانا إلى أبدون كنتو بسنية سيدا سيدائم كنو قنيا marka way isbedelayaan waa kuwa kala khaliif noqdo isbedela liman qof ayayna isku bedelaan araada doonay an yadhakkara inuu waansamo oo araada ama doonay shukrin uu ilaahay shukriyo maxaa loola jeedaa qofkii doonay inuu ilaahay shukriyo isku bedelaan waxa loola jeedaa waxa weeyaan habeenkan iyo maalinkan way isbedelayaan waana waqtul ibaada labaduba qofkii marka uu amal ka tago habeenkii maalinkii uu ka daba tagaaho ka gaara qofkii amal ka tago maalinkii habeenkii uu ka gaara oo amalkii qabsana sida waxa weyn xadiiska saxiixa waxa weyn xadiis abi Musa al-Ash'ari imaam Muslim saxiixiisa ku soo saaray nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri
إن الله يبسط يده بالليل ألا قعنتي سوفديا هبانكي ليطوب مسيء النهار سيء توبكينا مالكي قفكي قلت وكدعي هبانكي وكجاره وكدبتغا أو توبكينا الله وكأقبلا ويبسط يده بالنهار مالكينا ألا قعنتي سوافديا ليطوب مسيء الليل حالكي حمان تسميه سيء وحوين توبكينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلاة الضحى أيو ديريي markaasa la yiri maanta waxa sameeyay waxaan sameey jirin markaas yiri xalay wardigaygi la qofka muuminka wardiyulay waxa weeyaan cibaado go'an leh wardiga waxa loola jeedaa waa cibaado intaas ragcad tukato intaas jusad aqrido intaas adkaarad aqrido wardigu waa cibaadadaada aad kula xisaabtanta naftaada wardigaygi ya xalay waxa weeyaan qayb ii baaqi aheeduy marka waxaan jeclaaday inaan hadda iska dhameystiro barqadi ana sidii nabigu yeelin jiray sallallahu alayhi wasallam hadii saxiixa uga sugan tahay habeenkii nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii uu ka tago wardigiisu waxa weyn wuxuu tuka jiray barqadi qoraxdu markay soo baxdo ilaa 6 saac inta u dhaxayda 6 saac waxaan ula jeedaa istiwaa intaysan gaarin meesha u dhaxayda waliba habeenkii adoo la yimid aad ajirkeedii leedahay nabigu sallallahu alayhi wasallam qofkii habeenkii wardigiisu dhaafo oo macnaha salaatu leelkii uu tuka jiray ka tago waxa weeyaan markay qoraxdu dhulka ka go'do oo waqtul karaahiyadu ay dhamaato ilaa istiwaa inta u dhaxaydu la imaana asagoo xal la yimid ajriga waa qofkii ay waxa weeyaan ciidu uga tagay ee qofkii kas uga tagay lagama hadlaa qofkii kas uga tagay kaas lagama hadlaa marka habeenka iyo maalinku waa isbedelayaan liman araada qofkii doonay an yadakara inuu waansamo oo araada doonay waxa weeyaan shukrin oo ilaahay shukriyo wa ibadur rahman allah naxariista ballaaran adoomadiisa alladina wa kuwa yamshuna sa'ada ala al-ardi dulka korkiisa ku socda hownan mashyan socod hownan oo tartiib ah wa idha khatabahum markay la hadlaan al-jahiluna wax magaratada qaalu wa yiraahdaan salaaman annaga bari'an in kannahay والذين واكوا عباد الرحمن يبيتون بريها بينكي سجدا حال أيهم كوي سجودسا لربهم ربكوت سجودسا وقياما حال أيهم كوتاغا لعبادة ربهم ربكوت عبادتي سوتاغا والذين واكوا عباد الرحمن يقولون إلى هذا ربنا ربك النيو اسرف عنا نقليحي عذاب جهنم نار جهنم عذاب كذا نقليحي إن عذابها عذاب كذو كان وحوها هذا غراما مدائمه تشوكتا إنها جهنم ساءت وحماتي مستقرا مكان السقناشو ومقاما يمكان النقاشو والذين واكوا عباد الرحمن إذا أنفقوا مركي بحنيان لم يسرفوا عن حد قدب ولم يقتروا عن قد عرير وكان انفاقه وقوع هذا قواما دحدحات بين ذلك بين الإسراف والإقطار حد قدوك يقود عريرك وابدحيا الكان وحنا وقب الله بنيا صفات الله سبحانه وتعالى وكت المامي عباد الرحمن عباد الرحمن الضوامداس إلهي الله تيريو والله مروحة ويان عبودية عامة الضوامداس ضمبا الضوما إلهي ويه مخلوق ضمبا والضوما إلهي عبودية عامة مرنا إلهي وحا لوغو تيريا وحا ويان وعبودية خاصة وإضافة وإضافة التشريف عبودية خاصة هذا لغا الله الضوما وحا ويان إلهي سيقار حقي سوء العالية وقود دالة ويكو الله تلماما مركا عبودية دان وعبودية خاصة إلهي وينا سبحانه وتعالى إلهي سيدات صفو وآدي عجائب بلان أيو كنت المعامي الله سبحانه وتعالى وحيري وعباد الرحمن الله الرحمن كالدومديسة وعبودية خاص كالليمت الذين واقوا يمشون الصعودة في الأرض دولك كوركيسة هونا ومصدر لصفة محذوفة وعباد الرحمن الله الرحمن كالدومديسة الذين واقوا يمشون الصعودة على الأرض دولك كوركيسة كل صعودة هونا ومصدر وحويان وحا لغا صفينا مصدر محذوف الصفديس وحا لليه مشيا صعد كاسو هونا حسلان markay sifada ugu horeeya lagu tilmaamay waxay tahay عباد الرحمن marka ay soconayaan
socod degan oo kibir iyo iskajabin ku jirin ay socdaan waa sifada ugu horeysa ilaa qofka muuminka waxa la rabaa quraanka marka dhageysanaydo miisaanka naftaada un baa laga dhigaa wixii wanaag ah oo quraanku sheegayo maxaad kugu sugan maxaa ka maqan waa in la isku miisaantaa oo wixii aad ku sugan tahayna aad ku farcadayto ilaah uga mahdidaa wixii ka maqanna aad raadida inaad ku sifowdo wixii xumaanaha quraanku ka digayana maxaa kugu sugan maxaase ka maqan wixii ka maqan wayna sida iskaga ilaalin alla uga mahdidaa wixii kugu sugan aad ka toba keentaa marka sifada ugu horeyda waxay tahay markay soconayaan socod degan oo kibir iyo iskajabin ku jirin ayay socdaan macnaha kibir kuma jiro iyo iskajabin iyo isqaaqaab oo waxay la mid tahay wala tamshi fil ardi maraha dhulka korkiisa ku socon adoo kibraya innaka lam takhriqa al arda wa lan tabluqa al jibala tula saas weey wuxuu xaafid ibn kathir loolama jeedo sida dad jiran inaad u socoto oo waxa way inta qoorta laalaadido meyd iska dhigto ma loola jeedo saas loolama jeedo maxaa yeelay wuxuu yiri kaana sayyidu waladi aadam nabi muhammad wuxuu ahaa sallallahu alayhi wasallam ida masha kaanama yanhadu min sababin nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa markuu socdo waxaad mooday inuu meel hoobada ka soo degayo macnaha waa socod socod dheer ku socdaa way socod dheer ayuu ku soconayo kaanama yanhadu min sababin meel oo hoobad ah marka qofku meesha ka dalcada ka deganayo xoga inuu degdegayo soo ma jeedin qaabkaas uu nabi maxamed soo jiray sallallahu alayhi wasallam qaabkaas uu soo jiray kaanama al-ardu tudwa lahu dhulka in loo soo duubayaa badmoodayba sidoo soconay nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas ayuu mooday bacdu salaf wayna caayeen inuu qofku daciif ka dhiga markuu socona wuxuu Umar ibn Khattab nin dhalinyaro arkayo tartiib u socda markaas yiri ma baaluka anta mariid waxay tahay xaalkaagu ma jiran tahay markaas yiri la ya amiin almu'miniin ma jirani markaas uu jeeda la koray markaas uu yiri xoog u socwariya u soco xoog marka waxa loola jeedaa howlanta deganaan oo aan kibir iyo isqaaqaab aan ahayn ee si dabiici oo ilaahay ku abuurayna u socoto saasa loola jeedaa oodan si jabinooda hadda labada dhinac midba mar dhugan haba ma tihido qof caadi iska socdaata miskiineen taasa laga hadlaa sidaas marka weeye marka sifada koobaad waa midaas sifada labaad ilaahu wuxuu yiri subhana wa idha khatabahum markay ibaadur-rahmaan la hadlaan al-jaahiluna wax magaratada qaalu waxay yiraahdaan salaaman nabadgelyo salaamantan loolama jeedo duca loolama jeedo sida nuxaas uu yiri macnaheeda wuxuu yiri laysa hada salaamu min at-taslimi nabadgelinti maahan uu nabadgelinti maahan inma huwa min at-tasallumi arabtu waxay tiraahdaa uu yiri tasalluman minka warbari'anka aniga warbari'anka marka salaamanta macnaheeda waxa weeye laysa baynana wa baynaka shar khayr wala shar wax naga dhaxeeya male bari'anka waa saas bari'anka ahay weeye salaamantan nabadgelyo waa salaamun mutaraka kala tagid weeye nabadgelyo macnaheeduna waxay tahay bari'anka ahay aniga adiga shar iyo khayr midna naga dhaxeeyo waxa loola jeedaa dadka ibaadur-rahmaanka ah hadii dad ula hadlaan si qaldan oo hadal aan munaasib ahayn kula hadlaan uma jawaabaan loola jeedaa saasa loola jeedaa afxuma marka lagu hadlo uma jawaabaan sidaas weeye khulaasada macnaha loola jeedo Nu'man ibn Muqirr al-Muzani wuxuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu yiri nin caayay rasuulka agtiisa sallallahu alayhi wasallam ninkii la caayay wuxuu leeyahay alayka salaam kanuna waa caaya saasaatay markaas uu leeyahay alayka salaam nabadgelyo dushaada haad rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam inna malakan baynakuma yadubbu anka malaga dhixdiina joogo adiga ku difaacay dhixdiinu joogay adigu ku difaacay markasta oo uu ku caayo malagu wuxuu lahaa oo uu yiraahdo sidaas iyo sidaas tahay adaa sidaas iyo sidaas adaana ku haboon uu lahaa inuu malag markaad adigu tiraahdo alayka salaam iyo nabadgelyo dushaada ha ahaatana wuxuu dhahay la nabadgelyo dushiisa maahan anta xaq bihi adaa nabadgelyada leh marka fiiri wanaagaas aad leedahay di waxa weeyaan mooriyaan ciyaal suuqa uu ku aflagaadeeyo looma jawaabo malaga uu jawaabaya oo le waxaan asagu maahan adaa adigana ku jawaabay marka looma jawaabo marka sidaas ibaadur-rahmaan sifadoodu taas weey
إلى واسيط المام سبحانه إلى وغيري والذين واكوا عباد الرحمن يبيتون بريا سجدا حاليهم كوي سجود لربهم ربهم وقياما حاليهم كوي تاغن أو لعبادة ربهم تاغن صفات صدحات إلى عباد الرحمن كنت المامي وحا أي طاهي إن وحويان هابينكي وقت قودة أي كبحيان عباده والصلاة هي عبادة كلا أما هاتو قرآن أخرس أما هاتو أذكار أما هاتو حراسة في سبيل الله وحويان شيء عبادة هابينك أي أتاقيهن وقت قودة كبحيان ما هندط maalinkiina sida waxa weeyaan dameerkii u shaqaysta habeenkiina sida baqtiga u yaala maahan cibaadu raxmaanku waxa weeye habeenkii qayb kamida cibaada iskale quraankuna macnahaas cibaadu raxmaan aad ugu celceliya habeenkii qayb kamid ah inay siiyaan cibaadada ilaahay kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un habeenkii ay yaray ka seexdaan oo ilaahay tatajafa junubuhum 'anil madaaji'i يدعون ربهم خوفا وطمعا دينعيدودا عادلك كسو فغاده وقتiga dadku hurdayaan marka waa sifo weyn oo cibaad الرحمن ay iskaleeyeen sifada afraad rabbul alamin wuxuu yiri walladina waqu cibaad الرحمن يقولون يراهدا ربنا يا ربنا ربنا اسرف عنا نجلهي عذاب جهنم عذاب كده إن عذابها جهنم عذاب كده كان وحو هذا غراما مد لازم او قفك دائم او ان دماهين هدو خاصه قفك قال ما كدنتو ومد دائم هو قفك كهري ساس وي اله نغليه ساس يراهدان marka sidaasay habeenkii ku bariyaan ilaahi weynaayay jahannama ka magan galaan waasifo weyn dad badan oo muslimiin waxa jirta aysan badnayn inay yiraahdo ilaahu jahannama iga badbaadi way iska dabiici iska socda wa ayaan dara weyn ayaan dara iyo musiibo qofkaas haysan waxa la rabaa murugada kuugu weyn inay tahay jahannam oo aad tira Allah jahannama iga badbaadi maalinta qiyaamada dadka jahannama laga badbaada waxa kamid ah waxa weeyaan dadka ilaahay ka magan gali jiray oo mar alla markii xaqiisa loo soo dhigo ay jahannama isku dhiga iyada dhammaan markaas ilaahay leeyahay maxay tahay xaalkaagu markaas ilaahay ilaahay uu iga ka magan gali jiray marka ibaadur rahmaan waa nuucaas al-imam Muhammad ibn Ali al-Karji wuxuu yiri aayadan waxay daliil u tahay إن دعاء عبادة دليل على أن الدعاء عبادة وحي تصيد آياتانو وحويان دعاء يبريض إني عبادة وأدونك إلهي بريا لغا أبال مرينا ولغا أجر سينا موابا أركين يري الله إنو كدر وحيالها عباد الرحمن لغو أمانا وحانا سيحو جنية إلهي قولك سويري وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم ربكين وحو إليري إطوبة وإن كي إلهي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخلين بدك عبادة إذا إسكوين إيسية جهنم يجلدون يقود ليسا مركاسو يري فصماه عبادة دعادي آيات القرآن إلهي عبادة كلهم مقعاب عبادة إلهي كلهم مقعاب وحو يري وحا صدا صوكال سيحو جنية حديث النعمان بن بشير إمام الترمذي أبو داود يقيد كود بأي وريان صحيحة النبي محمد يري الدعاء هو العبادة بريان وعبادة محامرك الصباحية الكتاب والسنة حتى السجين بريان إلى عبادة تهي وحا صباحية إلهي قيد كيسلول لحي وشركي إسلام كاللغة بحيو قالبنا اللغة متنقنيو سلاس ويان الله سبحانه وتعالى وغيري وحي لهذين عباد الرحمن إنها جهنم ساءت وحماتي مستقرا مكان السقناشو ومقاما مكان النقاشو ما اللغو السقنادو اللغو النقادو أيضا أوليدته والذين واقوا عباد الرحمن صفشنا إلهي كتل ماما والذين واقوا عباد الرحمن إذا أنفقوا مركب بحنيان لم يسرفوا أن كحد قدبين وحبحنتا ولم يقتروا أن نقود كإريرين وكان إنفاقهم اسم كان إنفاق علي وكان إنفاقهم وحبحين تدوقوا هذا قواما أي وسطا بحبحا بين الإسراف والإقطاع بين ذلك المذكور ذلك المفرد تقول إشارة لما الشيء وحوال بمعنى المذكور تقول إشارة بين الإسراف والإقطاع وحبحين تدوقوا وحي وحويان حد قدو يعريرين صفر شنات
waxa weeyaan rabbul caalamiin ibaadur rahmaan ku amaanay waxay tahay markay wax bixinayaan oo ay ehelkoodii iyo xaasaskoodii biilka siinayaan caruurtoodii biilka siinayaan waalidoontoodii wax siinayaan waxa weeyaan ay nafaqaynayaan oo ay nafaqada bixinayaan ama waajibka ku ah waxa weeyaan baahidii wax ka badan ma bixiyaan oo markaas israaf uu ka yimaado oo la yiraahdo subaxdiina quraacda godka lagu shubo waxa weeyaan cashadana waxa weeyaan habeenkii qalabtii lagu shubo waxa weeyaan taas waa israaf maxdiya marka ayadoo dad mu'miniin ah waxa weeyaan ay la silcayaan gaajo iyo dandaro waa israaf marka taas talabaadna ma iriiriyeen oo wax aan ku filnayn ma siiyaan ayagu ilaahay u dhiibay oo caruurtoodii iyo xaasaskoodii iyo waalidiintoodii iyo dadkii inay biilaan ay ku waajibtay kama iriiriyeen ee wax ku filanay siiyaan sidaas weeyaan ayada macnaheedu waa sidaas waxay kale too soo galaya yiraahdeen hal cilmigu oo israafka soo galaya walow hal shilin ba ha ahaadee haddii shilinka lagu bixiyo meel aan sharci ahayn meel xaaraana haddii lagu bixiyo khalaas ayadu waa israaf hal shilin ba Allah ka dhigay hadduu waxa weeyaan 10 shilin kala baxo waxa weeyaan qaab uu kala baxo oo daroogada cagaaran uu kala baxo musrif iyo isagu hal shilin ba Allah ka dhigay ayadu waa iska israaf mar hadduu sigaar kala baxo ama qamra kala baxo ama jaad kala baxo ama waxa weeyaan darooga kale kala baxo waa isku wadami Muhammad al-Amin al-Shinqidi adwaa bayaanka aayadan markuu marayay waxa weeyaan mas'ala wuxuu uga hadlay oo khulaaso ajaa'ib badan oo xagga dhaqaalaha ku saabsan wuxuu yiri sideeda dhaqaalaha dhan ama mas'alada iqtisaadiga la yiraahdo laba shay ay ku kooban tahay laba shay ayay ku kooban tahay uqalada dhamaada isla ogi shayga koobaad waxay tahay iktisaabka maalka meesha laga kasbanayo iktisaabul maal meesha labaadna waxay tahay sarfu meesha lagu bixina qof kasta marka waajib waxa ku ah meesha maalka laga kasbanayo inuu ogaado ma xalaala mase waa xaraam illa meel kasta maal in laga kasbano ma banaanay inaad untira maal hay soo galo ee aadan fiirin meeshan ma xalaala mase waa xaraam ma banaana soo ma jeedid ilaahi weyna subhanahu wa ta'ala meesha laga keenayo uu ka hadlo wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba ilaahi bay'i wa halaleeyay ribadi wa haramtinimay mu'miniinta waa amr inay raadsadaan wa ufasaha laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum wahdan biyadushina maahan hatta dheeraad iska raadsataan oo ganacsataan fayda qudiyati salatu fantashiru fil ard marka salaada jumcada tukataan dhulka ku faafa wabtagu min fadlillah raadsada ilaahi fadligiisa marka ilaahay waa amray in la soo kasbo laakiin ilaahay wuxuu cadeeyay inuu waxna baneeyay oo meesha laga kasbaa meelna waa meel banaan meelna waa meel xaraam ee koow meesha xalaasha waa in laga kasbo meel xaraam aan laga kasbin tan lagu bixinaa meelaha lagu bixinaa la sarfinaana ayadana aayadan Allah waa uga hadlay oo sarfigiiyo aayadan uga hadlayo markay wax bixinayaan mu'miniintu waxa weeyaan qaabkay u bixi lahaayeen oo shay baahida ku miisaaman inay bixiyaan baahida shay ku miisaaman oo kana yarayn kana badnayn meesha lagu bixinaana xukunka sharciga waa in la ogaado sababtoo ah dadka maalka bixiya qaarna ilaahay ajar weyn ugu ballan qaaday مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة تلك الطريق الله مالك وذكوب بحنا وحي كدغان تahay waxa weyn hal mir oo 7 sabuul dhaliday sabuul kastaana 100 mir ku taala 700 oo goor loo laalaabay 700 oo goor xayleed waxa weyn 7 sabuul oo kiiba 100 mir yahay weey 700 oo goor loo laalaabay waa dariiq Allah raali ka yahay بينما طريق قلقه dadkii ku bixiya diin la dagaalanka uu ilaahay yiri innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra maalka waxa way kuwa gaaloobay hantidooda ay bixinayaan waxayna u bixiyeen diinka Alleh dadka ka celiyaan in ilaahay diinkiisa la burburiyo kitaabka Alleh xukun Alleh uu sanduulka ka taagmin ayaa kufaartu maalkooda u bixiyaan sadaqa ma waxay bixinayaan soo ma jeedid laakiin rabbul alamin wuxuu yiri fasayunfiquna thumma takunu alayhim hasra wa bixinayaan shalaytaysa ku noqon doonta waxa qaramada madoobe bixinayaan UN ku waxay bixinayaan oo ay u bixinayaan ilaahay nuurkiisa in lagu damiyo ilaahay wayna shalayto dushoodu yeeraya fi dunya wal aakhirah ayagay ku dabagaboodeen marka wuxuu yiri labadaas waa daruuri qof kasta oo bani aadanka waa inuu yaqaan maalka meelaha laga kasbo ilaha laga kasbo
waa inuu yaqaan iyo meesha lagu bixiyo haddii uusan qofkii yaqaanu yiri meesha laga kasbo laakiin qaab loo bixiyo uusan noqon dabaal iska yahay wixii waa soo shaqeynaa baaba'ay hadduu khabiir ku yahay sida loo maalka loo yaryaray iyo sida loo bixiyo laakiin uusan kasbi qoonna hada xul la fadhiyo maskaxdiisa meel cidla la fadhiyo wuxuu ku maamula marka labadaas muhiim u yiri dhaqaalaha laakiin wuxuu yiri labadaasuna laba shardi oo muhiim ay leeyihiin laba shardi oo muhiim ay leeyihiin oo waxa weeye maadaama dhaqaalaha dhan uu yahay meel laga kasbiyo meel lagu bixiyo shardi waxa ah meesha laga kasba ma xalaal mise waa xaraam in la ogaado meesha lagu bixiyana ma xalaal mise waa xaraam in la ogaado tan kaleetana marka la kasbo qaabka loo sugo in la ogaado waa muhiim oo waxa weeyaan dariiqan waa banaan yahay in maal laga kasbo mesela sida ganacsiga oo kale qofkii si guud u oge laakiin hadduusan khibrad gaar u ahayn waxba kama keeni karo masaladaas uu si gaar uga sii habo ala kulli xaal waxa weeyaan shayga ugu muhiimsan asaasiga waxay tahay qofku inuu ogaado maalka meelaha in laga kasbo inay meelaha banaan iyo meelaha banaanayn iyo meelaha lagu bixiyo waxa aan banaanayn iyo waxa banaan waa asaasiyaadka oo iqtisaadiga ama ahkaamta shariicada uga tacalluqda weeyaan Allah subhanahu wa ta'ala ibadur rahman ayuu wuxuu ku tilmaamay markay bixinayaan israaf iyo iqtaar inay iska ilaaliyaan inay labadaba iska ilaaliyaan oo Ilaahay ku tilmaamay Ilaahay waa si tilmaamay ibadur rahman Ilaahay wuxuu yiri subhana walladina waa kuwi ibadur rahman la yad'una an aabudin ma'a Allah la jirkiisa ilahan ma'bud ilaha soo aakhara kale wala yaqtuluna ana dilin النفس نفعان دلين التي نفتي حرم الله إلهي حرام تنميي إلا بالحق حق حال أي كدليان ماهنين ولا يزنون واكو أنزنيسا ومن يفعل قفك السمية ذلك انت أصل صوشيغي يلقى وحو لكل ميا أثاما أبا المريض صفة لهذا عباد الرحمن وحي طهي والذين واكو لا يدعون أن عابدين مع الله إلهي لجركيس إلها آخر إله كريم عباد الرحمن صفدود waxay tahay waa kuwa Allah kaligiis caabuda oo aan cibaadadiisa cid kale ugu darin sifada toddobaad waxay tahay wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaqtuluna wa kuwa aan dilin an-nafsa naf allati nafta harrama Allah ilaahay oo harrimay illa bil haqq haqq halay ku dilayaan maahane waxa weeyaan naf ilaahay harrimay dilkeeda oo ilaahiriyaan la dilin nafta muuminka ugu horeyda nafta muuminka ugu horeyda nafafka ilaahay xarimay waxa kale ilaahay xarimay nafta dhimmiga dhimmi waxa la yiraahdaa gaalka muslimiinta ku hoos nool oo muslimiintu ay jizyada ka qaadaan caalamka korkiisa maanta kama jiro kaas la yiraahdaa gaal oo jizya laga qaado canshuur muslimiintu ka qaadaan kaasna waa mid kala labaad nafta kale ilaahay xarimay waxay tahay gaalka mu'ahadka waxa weeyaan dawlad kaafirada halkaas degan ayaa dawladda muslimka oo heshiis la galay inay nabad gelshaan 5 sano yaanan isku soo duulin ama 10 sano yaanan isdilin qofka dilaa jannada carafteeda ma helo nafta kale Allah xarimay dilkeeda waxay tahay waxa weeyaan gaalka musta'minka musta'min waxay tahay dawlad kaafirada xarbiyo ka dhashay oo ka mid yahay laakiin waxa weeyaan qof muslim ah kaligiis amaan siiyay mesela inuu soo galo wadanka ayaa loo ogolaaday wa in ahadun min al-mushrikiin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah wuxuu yiri ogolaw aan muslimka dhex tago aan quraanka soo dhageysto ama dan kala loo keen qof muslim ah badbaadi ama gabar ah badbaadiday ama wiil ah badbaadi ama nin weyn ah ama niya qofka muslimiinta ugu yara badbaadi kara adoon xataa muslim ah badbaadi kara hadii qof muslim yiri ana badbaadiyay qof muslim oo banaan inuu dilo marka nafafkaas oo ilaahay dilkooda xarimay waxa weeyaan madilan cibaadu rahmaan illa xaq inay ku dilayaan maahane oo waa maxay qofkii muuminka ahaa ee dilkiisa Allah xarimay ayaa qof kale oo muumin ah dilay kasuna u dilay amdan wa udwanan u dilay waa loo qisaasa waa muumin ah dagaal maahane dil islaamka kama bixin haduu qof dilay muumin laakiin haddana dilkiisu waa banaanana qofkii qofkaas waliga u ahaa aalaleeya ma lagu qisaasa ma lagu furiyo duu yiraahdo la qisaas wala qisaas marka muuminiin way dadkaas dila sifa sharciga inay ku dilaan marka waasa ama wax kale lamida ama zinaystay asagoo guur xalaal soo maray waa muumin gaal ma noqon waana la dila dhagaxa waa nafta looga jaraa marka dariiq sharci ah oo wax weyn shariicadu ogolaatay waxaan ahayn kuma dilaan way
kuma dilaan sifada sideedaad ee cibaaduraxmaan ilaa ku tilmaamay walaa yasnuuna ma zinaystaan cibaaduraxmaan ma zinaystaan ilaa wuxuu yidhi subxaana waman yafcal qofkii sameeya daalika intaas la soo sheegay waa saddexdan waxa weeyaan shirkiga dhiigga muslimka zinada waa saddexdaas qofkii sameeya yalqa wuxuu la kulmayaa ahaaman abaalmarin ahaaman maxaa loola jeedaa ahaaman ahlucilmiga gabal waxay ku fasireen cuquubuu la kulmayaa nakaalka waxa la yidhaha cuquubada lagu cibro qaato oo qofka ka dambeeya ku cibro qaato cuquubo lagu cibro qaato la kulmaa waa qowl kaleeto wuxuu leeyahay ahaaman waadi jahanamo ku yaalla waadi naarta jahanamo ku yaalla ayuu la kulmayaa qofkii saddexdaas mid ka mida la yimid waa shirki waa dhiig muslim ama dhiig naf ilaahay xarimay iyo kan kaleeto zino macnaha saddexaad ahaaman ay jazaa ismihi dembigiisa abaalkiisu la kulmaya xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi wahaada ashbahu bidaahiri lqur'aan in ahaamanta lagu fasiro jazaa'an ayadaa qur-aanka daahirkiisa u eg sidaas daraaddeeda allaaba fasiray oo waxa ka dambeeya ku fasiro waa laga bedelaa waxaa la leeyahay yalqa wuxuu la kulmaa ahaaman abaalmarin ayuu la kulmaa yudaacaf waa loo laalaabaa ka bedelo taasaaba fasirtayba yudaacaf waa loo laalaabaa lahu qofka mushriga ama dhiigga muslim galay ama waxa weeyaan sinaystay alcadaabu cadaabka loo laalaabaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waykhlud waana waaraa fiihi cadaabka dhexdiisuu ku waaraa muhaanan xaale uu yahay midkii la duleeyey oo la ihaaneeyey muhaanan waa ismu mafcuul oo min ahaana ka timid muhaanan xaalu yahay mid la duleeyey oo la ihaaneeyey ilaa man taaba qofkii toobad keenay maahane ilaa man qofkii maahane taaba toobad keenay wa aamana rumeeyey wa camila camal falay camalan camalkaasoo saalixan wanaagsan waxaa cadaabkaas ka badbaadaya dadkii shirkiga ku dhacay ama dhiigga muslim galay ama zinada ku dhacay waxaa ka badbaadaya cadaabka qofkii toobad keenay oo ilaahay u soo laabtay inta goor tahay oo ilaahay rumeeyo shirkigii iimaan ku bedelay oo camal saalixa la yimid oo camalkii xumaa camal wanaagsan ku bedelay kaas waa ka badbaada ilaa man qof maahane taaba toobad keenay wa aamana rumeeyey alle wa camila camal falay camalan camalkaasoo saalixan wanaagsan fa ulaa'ika mantiga lagu ishaara xagga macnaha dadka iimaanka iyo camalka saalixa la yimid yubadilu llaahu alle wuxuu ugu bedelaa sayi'aatihim xumaanyaalkooda xasanaatin wanaagyaalu alle ugu bedelaa wanaagyaal uu alle ugu bedelaa sayi'aadkooda wa kaana allahu allena wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaaf badan raxiiman oo naxariis badan cabdullaahi ibni cabbaas radia allaahu tacaala canhu wuxuu yidhi aayaddan sabab nusuul ayay lahayd oo wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cabbaas dad ayaa jiray min ahli shirki qataluu fa akaruu wa zanow fa akaruu uma atow muxamadan sala allahu calay wasalam ahlu shirkiyay ahaayeen oo shirkiyayba ku jireen iyo gaalnimo daday laayeen aad u fara badan way sinaysteen in badan markaasay nabiga u yimaadeen sala allahu calay wasalam markaasay waxay yidhaahdeen ina aladii taquulu wa tadcu ilayhi laxasanu arrinta aad sheegaydo oo aad dadka ugu yeeraysaa waa arrin wanaagsan low tukhbirunaa anna limaa camilnaa kafaaratan haddaad noo sheegi laheed wixii aan samaynay inay kafaara gud yihiin markaasay naga wax noo tari leh naga waxaan nahay dad shaqeeyey shirki dad laayey dad sinaystay ayaanna marka ilaaha la caabudo jannaa lagu helaahe waa war wanaagsan laakiin warkaas wuxuu aad qiimo noogu lahaa haddaad noo sheegi laheed wixii aan samaynay inay kafaara leeyihiin kafaara gud inay leeyihiin markay sidaas yidhaahdeen fanazalat faadaa sababiya waa sabab nusuul marka waxaa soo degtay waaladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna annafsa alatii xarama allahu ila bilxaq walaa yaznuun waxaa kaloo soo degay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican inahu huwa algafuur raxiim ayaa soo degeen kuwaas ayaa soo degeen marka waxa weeyaan cabdullahi ibni cabbaas wuxuu yidhi marka wuxuu yidhi aayaddaas waxay ku soo degtay oo la leeyahay qofkii shirki qofkii la yimid ama muslim dilay oo dhiig xaaraama galay
waxa weeyaan toobad keenay cadaabka waa ka badbaadaa ahlu shirkiyay ka hadlayda qof awal ahlu shirki ahaa oo toobad keenay ka hadlayda Abdullah ibn Abbas wuxuu ku daray fa amma man dakhala fil islam wa aqalahu qofkii islaamka soo galay ee islaamka gartay thumma qatala kadib dilay naf ilaah ka xarimay fala toobata lahu wax toobada male asoo taas Bukhari iyo Muslim ku taal wax toobada male ee qof gaal ahayo toobad keenay ayadu ka hadlayda ee marka muslim noqday oo diinta alla fahmay aan kadib muuminiinta layna ama naf alla iga xarimay toobad male halkaas ka dhaxshay laakiin qowlkaas waa qowl dhaif Abdullah ibn Abbas qowlkiis waxaana tusaa inay dhaif tahay quraanka sunnada labada حافظ كثير وحوي يري وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاطع آيضا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا آيضا وحا كسوغا دلالة تصيدا على صحة توبة القاطع قفك ضد لي تردي سنة أنصحي ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء آيات سورة النساء كجرت هي آيات وسكور اماميا سورة النساء وحا كسغان الله انو يري ومن يقتل مؤمنا قفك مؤمن دله متعمدا اسغا وكسيا فجزاؤه جهنم أذلك سوى جهنم خالدا فيها وكواريا وغضب الله عليه الله وعرودي ولعنه الله ولعنبي ونحريسيسو كفبيي وأعد له عذابا عظيما عذاب وين ودياري شنتاس إلهي ودياري قف مؤمن كاس وديري آيات ما يسن شيغين قف توبت كان ليش عبد الله بن عباس ودري شنو تاس او الى آيات هو مدني تاسات دمدي آيات هذا انا خينا سورة الفرقان ومكي تاسات دمدي تاسنا توبت ما شيغين قف مؤمن كاس وديري جهنم سوى ساسي كو قتل حافظ انه كثير الا الله يذكر اماميا sababtoo ah waxaysan iskaga hor imaaneen haba ahaato aayadaas madani ee aayadda suuratu nisaa ku jirta waa mutlaq qofkii qof muumina dilay kasna u dilay abaalkiisu waa saas waa la itlaaqay inuu toobad kaliin kale ma aysan ka hadlin aayadaas ma aysan ka hadlin aayaddan suuratu furqaanna waa muqayyid waa la qaydi oo wuxuu qofkaasu jahannama leeyahay la yiri intuu san toobadkeen waxa lagu qayday jahannama inuu leeyahay waa intuu san toobadkeen ee haduu toobadkeen jahannama mare saasa loo qayday qaacidaduna waxay tahay al mutlaq yuhmalu ala al muqayyad waxa weeyaan mutlaqa muqayyadka lagu xambaara idan waxa weeye aayada suuratu nisaa ku jirtee mutlaqada ah fatuhmalu ala man lam yatub waxa lagu xambaara qofkan toobadkeen qofkii aan toobadkeenin shantaas iskaleeyay jahannamu leeyahay inuu ku waaru leeyahay ara allu leeyahay lacnada ku dhacday cadaab weyna ilaahay u diyaari qofkan toobadkeen waa kan qofkii toobad sax la yimaado toobad keenana aayadana ka saartay mana jahannamana mudamma ee ilaahay toobada waa ka aqbala waxa arinta si cadeynaya sunnada nabiga ka sugan ee saxiixa ah xadiiskii saxiixa ah 100 nin dilay ilaahayna waa ka toobad aqbalo jannuga 100 waliba ummadii naga horeeyayna waa kamid ahaa waxaan la ogsoon yahay ummadan ilaahi weyna wax badan ummadii hore ku cusla inuu ka fududay ummadii hore wax badan culays oo ayaga saarnayo ummadan ka fududay hadiiba 100 qof nin dilay oo waxa weeyaan toobad keenay laga aqbalay oo ummadii hore ah midka ummadan kamid ah dilay dad muslim ah ee toobad keenay in laga aqbala waa min baabil awla idan marka waa cadahay qofkii qof muslim dilay ilaahi diig muslimnimo galiye toobad in laga aqbala haduu toobad sharci la yimaado laakiin toobad sharci laga raba toobad sharci ah waa maxay waa inuu horta dambigi ka joogo waana inuu ka shanlaayo waa inuu go'aansado waligiis dambe inuusan u laabay soo saddex sharti maahan dadkii uu dadka ka dilay inta u tago inuu yiraahdo ama qisaasta ama ii cafi laakiin ilaahay aan u toobad keenay duurkaygaan galay maya madan toobad keen toobad keenku waxay tahay dadka dishay hadaa taqaan badkoodii waa inaad u tagto oo aad tiraahdo waa ikan maalin hebla iyo waqtiga hebelaha qofkii hebelaha ana dilay waa ikana iga tali ama ii cafi ama ii qisaasta wayna isdhifto shardi weeye hadaadan taas la imaan ma toobadkeen taas weeye marka taas muhiim inaad ogaato yaysana kula weynaan in lagu qisaaso war qisaas waxa dhacda daqiiqad 2 daqiiqo nafteena kaaga dhacdo
laakiin haddaad diiddo jahannama inaad ku waarayda sugida nacuudu billahi minha marka waa noocaas wey marka sideedaa sifa ilaahay ku soo sheegay cibaaduraxmaan ilaa wuxuu yidhi subxaana fa ulaa'ika dadka toobad keena ee shirkigii ka toobad keena dhiiggii ka toobad keena zinadii fa ulaa'ika dadkaas yubaddilullaahu alla wuxuu ugu beddelaa sayi'aatim xumaanyaalkoodii xasanaatin wanaagyaal xumaanyaalkay sameeyeen xasanaad iyo ajara loogu beddela maxaa loola jeedaa laba qowl ay ka leeyihiin alcilmi sayi'aadkoodii xasana loogu beddelaa laba qowlay leeyihiin qowl wuxuu yahay labada qowlba xaafidkaa keenay meeshii awal ay ugu qorneed xumaanta waa laga tiraa ila waa toobad keenaye waxaan loogu qoraa xasanaadkii oo qofkaan awal shirkii ku sugnaa waa toobad keeno waa rumeeyey ilaahay shirkigii loo qori maayo iimaana loo qoraa dhiig muslimuu ku sugnaa waa ka toobad keenay daacada dambe iyo toobadaasa loo qoraa zinuu ku sugnaa waa ka toobad keeno waa qowrsaday daacadaasa loo qoraa marka meeshii awal sayi-aad u qornaa jiray waa laga joojinaa xasanaada loo qoraa saasaa loola jeeda waa qowlka labaad wuxuu leeya maya sayi-aadkii tegey oo uu horay u sameeyey ayagiiyo xasanaad isku bedela oo see isku bedela xaafidku macnahaas aad u dhalaaliya waana tusay wuxuu yidhi sayi-aadkiiyo xasana isku bedelaa binafsi toobadda nasuuxadaa iskugu bedelaa arrintaasuna waxay tahay yidhi kullamaa tadakara maa madaa nadima wastarjaca wastakfara mar kasta oo uu soo xasuusto dembigii hore shirkiiu xasuusanaa waa ka qoomamaynaa qalbiga muraal dilaaca waa murgaa ilaahay uu toobad keenaa ajara loogu qoraa soo maa dhiig muslimuu soo xasuusanaa waa murgaa waa toobad keenaa ajara loo qoraa zinadii u xasuusanaa qalbigiiya dildilaaca murgo iyo booyin xasana looga qoraa dhammaan sayi-ad kasta oo uu sameeyey toobadkeenka uu ka toobad keena waa xasana ugu bedelmi marka nafsu sayi-aadkii booskiiyo xasana bedele waxayna ku bedele waa shanlaytada uu ka shanlaayayo shanlaytaduna waa qalbiga marka sidaas weeye marka qowlkaas dambe aana aad u sii xoog badan ilaa laba xadiis oo haabitana waa ku soo arooriyey oo macnahaas tusaya marka macnaha sawaabka ahoo sayi-aadkii laftirkoodii ayaa binafsi tawba xasana iskugu bedela wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaaf badan liman taaba raxiiman mid naxariis badan lilmu'miniina waman taaba qofkii toobad keena maahan kaliya saddexdan shirkiga iyo nafta ilaahay xarimay iyo zinada kaliya maahan waman taaba qof alla qofkii toobad keena oo wa camila camal fala saalixan camal wanaagsan fa innahu qofkaasu yatuubu ila allah alluu u soo laabanaho ilaahay waa ka toobad aqbalaa weeye mataaban noqosho fa innahu qofkaasu yatuubu waa noqonaa ilallaahi alluu u noqonaa mataaban noqosho ilaahayna waa ka toobad aqbalaa weeye macnaheedu والذين واقوا عباد الرحمن لا يشهدون آن حاضرين الزور باطلك وإذا مروا مركيسان مران باللغو باطل مروا ومران كراما حال أيهين كوي كراميسان وروناكسان والذين واقوا عباد الرحمن إذا ذكروا مركا لحسوسيو بآيات ربهم ربهم آياتيسا لم يخروا آن بعين عليها آيات كدوشود أن كدعين ثم حال أيهن كوي كدقلا وعميانا حاليهن كوي اندلا والذين واقوا عباد الرحمن يقولون إلى هذا ربنا ربك النيو هب لنا نقصي من أزواجنا حاصفكنا وذرياتنا عرورتنا قرة أعين إن يلقبوا سجود واجعلنا الله نغير للمتقين متقين إماما كوائي كديدان سيدات صفة هري عباد الرحمن إلهي وسوت المامة هل كان صدح آيات إلهي وإن هدنا عباد الرحمن كنت المامة إلهي وحده سبحانه والذين واقوا عباد الرحمن لا يشهدون آن حاضرين الزور باطلك لا يشهدون الله معنى إلهي لا يشهدون الشهادة بمعنى الحضور لا يحضرون لا يشهدون إيه الشهادة دي عادية أو أن كم مرقاتكين مركا لا يشهدون آن حاضرين الزور باطلك عن حاضرين معناها حوق بدنا معناها ان قرينada ka dambaydana wayda marruuna taasay tusay marka zuurka xal loo jeeda marka waa dadkan baadilka xaadirin cibaadu rahmaan maxaa loo jeeda baadilka wuxuu xaafidnu kafir waxa lagu fasiray shirkiga iyo cibaadatul asnaam cibaadu rahmaan shirki
iyo meel alla qayrkiis lagu caabudaa kama qayb galaan mushrikiin asagoo dhex taagan lama arko waa koo waxaa lagu fasiray beenta iyo fisqiga iyo cayaaraha cibaaduraxmaan kama qayb galaan beenta faasiqnimada cayaaraha baadilka tayaatarada ma tagaan ma ay xaadiraan shaneemooyinka ma ka qayb galaan meelaha riwaayadaha iyo wasaqda lagu dhigayo mana tagaan cibaaduraxmaan maxamed ibn xanafiya wuxuu yidhi huwa lahu walghinaa waa cayaarta iyo heesta soo tiyaatarradii maaha cayaaraha iyo heesaha cibaaduraxmaan ma tagaan ma u jeedaa marka cibaaduraxmaan ma dhex taagna tiyaatar iyo meel riwaayad lagu dhigayo ma joogo meeshaas abulcaaliya daawuus maxamed ibnu siriin dixaaq rabiic ibnu anas iyo qayrkood waxay yidhaahdeen allaqwa waxaa loola jeedaa zuurkan rabaa acyaadu lmushrikiin waa gaalada faystooyinkooda faystada gaalada kama qayb galaan cibaaduraxmaan gaaladu waa faysteeyaan ciiday leeyihiin ciidda masiixiga sanad marku dhammaana ciidda faystooyinka gaalada kama qayb galaan faystooyinka gaalada kama qayb galaan weliba tan waa daranta faystada gaalada lagama qayb galo badri rashiid waa faqiih fuqahadii xanafiyada ka mid a wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha alfaad alkufri wuxuu yidhi waman ahdaa yowma nayruus maalinta nayruuska waa furuska nimankii fariska waxa weeyaan maalinta ciidda u ah oo sanada shamsiga maalinka ugu horreeya way nayruuska qofkii maalinkaas ay ciidda dhigayaan hadiyeeya ilaa insaanin shay-an qof hadduu wax u hadiyeeyo walow ukunba allah ka dhigo hal xaba ukuna hadduu qof u hadiyeeyo wa araada tacdiima nayruus asagoo raba ciiddaas inuu ku weyneeyo oo ujeeddadiisu tahay ciiddaasuu weynaynaa kafara waa gaalooba waa gaal idan waxa weeyaan ahlucilmiga gobolkood halkaasi gaarsiiyeen waa kaafir maalmaha gaaladu ciidayaan qofkii ciid u oqoonsado ciid diiniya u oqoonsado weyneeyo soo ma jeedin qofka muuminka waxaa la rabaa maalinkaas inuu khilaafo oo shaqada ku mashquulo oo khayraadkiisa kale ku mashquulo oo waxa weeyaan wax yar oo faysta aan laga dareemin laakiin hadduu yidhaha maanta waa maalin faysta waa maalin ciid ah oo carruurtii wax u gado kaafir weyuu leey kitaabkaasaas xataa carruurtiisa hadduu u gado oo yidhaha maanta maalin ciida wey maxaa yeele diin baadiluhu diinimo u caqiiday marka maalmaha kufaartu ciidayaan waa inaadan ciid u oqoon faystana aadan u oqoon maalin caadi oo shaqo waa inay kuu tahay maalinkaas dad shaqo kaleeto wada gurigaaga ka shaqayso carruurtaada wax baro ilaahay caabud ha isku gaaloobin oo ha ka qaybgeli marka waa noocaas alcilmiga gabal waxay yidhahdeen waa meelaha qamrada lagu cabayo taasna dee xadiis haabit ahba ku soo arooro xasan ah waxa weeyaan oo xaakimna uu saxiix yeelay xaafid dahabi uu saxiix yeelay sheekh naasiruddin albanina gaayatul maraamka uu xasan uga dhigay oo nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falaa yajlis calaa maa'idatin yudaaru calayha alkhamr qofkii ilaah iyo qiyaamo rumaysan yuusan fadhiisanin miis qamro lagu qaybinayo ilaah iyo qiyaamo haddaad rumaysan tahay miis qamro la keenayo waa inaadan gees ka fadhiisan maahan anugu calimaa geeskaygaan fadhina alla iyo qiyaamo haddaad rumaysan taha fadhiisan meeshaas meel qof khayr loo fadhiista maahan maxaa ku dhiga meesha qamrada la dhigayo waxa weeyaan waa idabdaro waxaad meeshaas u fadhiisataa marka intaasoo dhan zuurkay soo gelayaan baadilka wey marka cibaaduraxmaan kama qayb galaan waxyaalahaasoo dhan والذين واكو عباد الرحمن لا يشهدون عن حاضر الزور باطل والذين واكو عباد الرحمن لا يشهدون عن كمرقاتك عن الزور مرقاتك بينك معناها لبا مرقاتك بينك كما مرقاتك عن عباد الرحمن إلا وكبائر تكون هو وين كمتا وإذا مروا مركي مريان تنا كنت سيد إن معناه وراجحها سيد حافظ بيقول وإذا مروا هدي صامران عباد الرحمن باللقو باطل مال باطل وهي عيار meel waxa weeyaan muusiq meel lagu qayrayo meel qamra lagu cabayo meel baadil lagu hayo haday soo maraan marru waa maraan kiraaman xaala ayhiin kuwi karaamaysan oo ka sharfan oo naftooda ka sharfaya inay ka qayb galaan waxaas inay ag fariistaan inay ag istaagaan inay kor joogteeyaan way iskala weyn meel turub iyo dubnad lagu ciyaara cibaaduraxmaan mal dul taagna cibaaduraxmaan meeshaas marka ayagoo iskalaba fiican oo sharaftooda ka ilaashanayay meesha ka gudbaan haday xataa ayagoo socdo wadadood ku soo dhacdo walladina waaku cibaadu rahmaan ida dhukiru marka la waaniyo bi ayati rabbihim rabbigood aayadihiisana lagu waaniyo lam yakhirru an bi'in alayha ayatka korkooda summan xalayhim kuwi dagala wa umyanan xalayhim kuwi indala cibaadu rahmaan ayatka alle markii lagu waaniyo lam mitmahan kaan lam yasmaha wa ida tudla alayhi ayatuna
ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأ فيري وإذا تتلى عليه آياتنا marka aayaadka ilaahay lagu dul akhriyo maxaa lagu yaqaanaa kaafirka wala mustakbira kallam yasmaha inuusan maqlinaad mooda kaana fi udunihi waqra waxaan moodaa dhagax qorays inuu ka saaran yahay ma ku taafuro gaalku waa sidaas marka ibaadur rahmaan aayaadka alla marka la xasuusiyo sidoodii hore kama aha laakiin ibaadur rahmaan waa sidee waxa weeyaan waa sidoo alla yiri alladina idha dhukira allah wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إيمانا وسيادة آيات مركا الواقعية مركا لم يخروا عليها صما وعميانا بل خروا سامعين ناظرين منتفعين سجودا لطعان أيغو مطلع أيغو فيرنا أيغو وكل فآيرة والذين واكوا عباد الرحمن يقولون إلى ربنا ربك إن يهب لنا نقصي من أزواجنا حاسسك إن حقوذا إيا وذرياتنا عرورتنا حقوذا قرة أعين إنه وحيكو قبوسنا عباد الرحمن وحلو يقان هبين إيا مال إلهي أبريان زوجوين كود إنه هجاتيو عرورتو إنه هجاتيو عرورت إله الله بريا حق له ما إصلاحك وحلو إصلاحيا إيضا وحلا ربوالك واجبنا كنتها إنه عنانتو حمانتا كعريو بل إنه قرعا oo waajib ku tahay hadana waa inuu baryada u badiya ilaahay baa hagaaji kare waa inuu baryada u badiya ilaahu rahmaan waxay rabbigood weydiistaan inuu ka tuso xaasaskooda iyo caruurtooda cibaado ayagoo ilaahay adeecay ila taas inuu ku farxaan ilaahu caruurtayda iyo xaasaskeenna naga tus wax aan ku faraxno oo ah ilaahay iyagu caabuday saas weeyaan ilaahay iyagu caabuday waj'alna allahu nooga dhig lil muttaqiina dadka alla ka baqa imaama عباد الرحمن وحي إلهي وينا ويديستان إن إمام كن نقضان دينت أو وحي لهذا إله وحي نقضان أئمة دينت الله قد ضيط عباد الرحمن وهمة عالية همة سيوية ما هنحوضا قفز كتو كذا الله يقدر وحي إلهي إله وحي نقضان إمام أو ضدك متقين تهوناك وقد ضيطان ساسي إلهي كبريا سداس أي عباد الرحمن الله كبريا إله وحوري سبحانه أولئك كوى لصوت المامي وعباد الرحمن سيدي صفات هره iyo waxa weeyaan saddexdan sifood ama afartan sifood dambe waa afar sifood dambe kuwa dambe iyo afartan sifood dambe marka la isku daro oo la soo koobo kulli sifaadaas isku dar marka wa ulaa'ika kuwa tilmaamahaas ku sifaysan ulaa'ika kuwa tilmaamahaas ku sifaysan yujzawna wala abaal marina al-ghurfata درجة سريع أو جنة لغو أبال مرينا غرفته والدرجة العليا في الجنة الدرجة العليا في الجنة والدرجة سريع أو جنة كتالا أولئك قوة المعنى حاصلة يجزون والأبال مرينا الغرفة درجة سريع أو جنة كتالا لغو أبال مرينا بما صبروا بسبب صبرهم دلقات أي دلقاتين سبب تيدان لغو أبال مرينا ومحي كصبرين معاصرين كصبرين إلا وحنا معاصية نفط واربطة لكن نفط دي كئرية شهودي وحيكون صبرين باعدنا وابد إلهي هارين كي سوچه ده تاسيكون صبرين مركز صبرك أي صبرين وأي معاصية كالصبرين وشهودي نفط دي كئرية وأي باعدي ببكي نفط كئرية وكو صبرين أي إلهي وعبر من بعض السببيات بما صبروا بسبب صبرهم صبرك أي صبرين سببتي ذا الله أبال مرنا ويلاقون وحال كل مياه فيها جنة دحديده حالي اهادين تحية الملك يا باقي اهانشو إيا وسلام النبدلي تحية waxaad ku fasirtaa mulkan wa baqaa sida imaam al-Baghawi uu yiri waxa weeyaan waxa la kulmiyo jannada dhexdeeda la siiyo mulk iyo baaqi ahaansho aysan dhibay iyo wasalaam salaamta saddex meelood uga imaan bacduhum ala bacd ayagu way salaamaan ahlu jannah ملائكة حقوده وأوغا إيمان يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فالنعم عقب الدار رب العالمين حقي سنة وأوغا إيمان سلام قولا من رب الرحيم مركا أيغو ويسي سلام أيام ملائكة وسلام رب العالمين وسلام سلام تاسا جنة تالا إلا وميلنا بتقريه ويلطون ولا كل مياه فيها جنة دحرية حالي هذين تحية الملك يا باقي أهانشو إيا وسلام النبدليو خالدين حالة أي كوار الدونان فيها جنة دحديدة حسنت ووناك سنتي جنة مستقرا مكان سقناشو إيا ومقاما مكان نقاشو ما اللغو سقنادو اللغو نقادو جنة وناك سن قل وحاتر نبقى صوبانو ما آبايلك
يعبأ بكم وإنين آبي إلى ربي لولا دعاؤكم عبادتي نهدي للأيهي فقد كذبتم واد بيندين قرآنك يا رسولك فسوف مرضا به ويكون نقضنا بينتينو لزاما عذاب إن اللازمة قل ما ماذا استفهامية كذب قل ما يعبأ بكم آبيالك أي عبء آبيالك يعبأ بكم وإنين آبي إلى ربي محو إنكو آبي إلى ربي محو إنكو آبي إلى لولا دعاؤكم عبادتي نهدي للأيه عباد الرحمن على صوت الماء إله ذلك سبحانه وتعالى أن عابدين أن صفات دقادا أيها وحا لليه واحد شيكتان واحد إلهي إنو كفريو هذا ديدان عبادتان إيا صفاتان إنا قادتان شيئا واحد الله إنو كقيميو عبادة الله إنين أبوري هدي الله إنو كوايو محا الله إنو كقيمينا ما جلت واحد الله إنو كقيميو وإنين ضماتيو قل ما يعبأوا آبيالك وإنين آبيال بكم إذين كربي لولا دعاؤكم عبادتي نهدي للأيه فقد كذبتم واد بيندين القرآن والرسول فسوف مرضا به يكون التكذيب أو يكون تكذيبكم تكذيب كتكذب اسم ككانا فسوف مرضا به أو يكون نقضنا تكذيبكم بينتينو لزاما عذاب إن كدقه أو إن اللازمة عذاب إن اللازمة أما واحد ترى فسوف مرضا به أو يكون نقضنا تكذيبكم بينتينو لزاما مد عذاب كان أي مقتضيا لهلاككم وعذابكم سيدا حافظ كبير حافظ كابا كوسو غدري مد كان عذاب النقضون بينتو والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد